horta waxa weeyaan waqooyow maanta ayaa inaga maqan waa su'aal musharaxiintii baa joogta xildhibaanadii baa kuraasta ku fadhiyay baa jooga hogaamiyaheennii baa horteenna fadhiya soomaaliyey bal arka war si fiican ugu qabta miidiyuhu ha u qabto dadka yaga waxaan fadhinaay waa royal balas waa waxa weeyaan hoolkii weynaa soomaali way og tahay inta joogta inta halkaa maanta fadhidaana waa dadkii matalaya midnimada ummadda Soomaaliyeed waa dadkii ka soo jeeday gobolada waqooyi waa dadkii u halgamayay inay dalkooda iyo dadkoodaba hogaamiyaan waxaan leeyahay jaalayaashayda saaxiibadayda naga maqanow ee farakutiriskaayow tareenku wuu socdaa mahdi baana wada yaanaynu ka dhicina soo raaca kursigana waxaa bixiya ilaahay halkaa waxaanu iskula joognaa kaan ku fadhiya intii rabtay iyo anigii oo raba inaan sii joogo weydiista bulshadayda dadka wax bixiyay waa shacabka dadka siiyayna waxa weeyaan waa dadkii dalkaa soo dooran lahaa waxaan leenahay mar labaad mar saddexaad musharaxiintiinni baan nahay hogaamiyaashiinni baan nahay idinkaan waxaynu weydiisanaynaa kuwa cusubna waxaan leenahay ilaaha casiiskaa wax bixiya soo dhowaada farasyadeena wada fuulno ana wada tartanno inaga oo mid kaliya Soomaali baa leh war halkan waxaan u joognaa anagu waa midnimo nimanka waqooyi ka hadlayo iniguma niimanin kuraastiiniye annaga mahdi baan noo madaxweyne ana raadsanina waxaan joognaa Soomaali weyn waxaan matalaa ummadda Soomaaliyeed low yaado ilaa iyo laascaano dadka degan gobolada waqooyi baa la yiraahdaa idina nama qariso geedna nama qariyo mana cabsano dad taagan baanu nahay walaalayaal inta naga maqano annaga golaha shacabka afar baa naga maqan sanadkaradana hal baa ka maqan yaynay iga tagin tareenku hawli buu socdaa waxa hogaaminayay waa mahdi wasiiradii baa baashiisa fadhiya xildhibaanadii baa garab taagan musharaxiintii baa joogta odayaashii dhaqankaad maqlayseen quraanjay ku quuso weeyaan mudane ra'iisul wasaare garbahaaga eeg hore u soco ha dhaqaaqda dawladdu madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waxaan leeyahay madaxweyne waad arkaysaa maanta waqooyi oon kala dhinnayn awdal baa u geesaysa halkaana waxa soo xigay waa Sanaag iyo Burco wax naga maqan inaguma jiraan musharaxiintayadii baa joogta xildhibaanadii labada golaha jooga wasiiradayadii baa jooga aqoonyahankii baa jooga musharaxiintii ka timiday Soomaaliland iyo daafaha dalka ee kuraasan xaqa u lahayd ee soo raadsataa joogta Soomaaliya ha midowdo way midowday ha israaco hana hogaamiye khadar guulan miyaan diidanahay sawma ogalin ha israacda waqooyi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isugu yimaadeen badi waxgaradkii ka soo jeeday Soomaaliland ama waqooyiga Soomaaliya si ay halkan ummadda Soomaaliyeed ee bariyahan mugdiga laga yarageliyay arrimaha qaar ay ugu bayaamiyaan arrintu halkay taalo halkan waxa fadhiya xildhibaano ku dhow kontameeyo waxa kale fadhiya boqolaal la sharaxan iyaga oo musharaxiintii ah meeshan meel cadaalad ay ugu dhowdahay garanba mayno waxa kale fadhiya salaadiin barigii hore la yiri waaba la afduubaya muran baa la gelinaya oo dawladnimada iyo waxa mataqaana hadda ka diri lahaday wax qaldan yihiin meesha markaad inta soo diray isugu timi maanta waxaan u maleynayaa warka ka bixi doona war cad buu noqon doona in waxaan leeyahay dadka reer waqooyiga anigu waxaan horta fursad u helay inaan garwadeen ka noqdo doodii
lagu soo markaysaa lagaga soo arrinsanayay doorashada dadban waxa la yiraahdo ee 2016 lagu galay waxaan kaloo ka mid ahaa intii aanan siyaasadda ku soo biirin si officially ah dadkii si dhow ula soo shaqeeyay ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore Maxamed Cumar Carte oo dhawaan inaga socdaalay halkan ka arrimin jiray isagu oo arrimaha reer waqooyiga iyo aqalka sare iyo dooda gacan weyn ka soo geystay baan ka mid ahay marka xogaalniman idin la wadaagaya horta waxa doorashada la yiraahdo marka hanaanka dawladeed la eego dawladdu waxay u kala baxdaa executive oo xukuumadii ah waxay u kala baxdaa sharci dejin bureaucracy iyo garsoor doorashada sharci dejinteeda waxa qaabilsan hay'adaha sharci dejinta doorashada fulinteedana waxa qaabilsan hay'adaha xukuumadda sharciguna laba u kala baxaa sharcigu midna waa mid qoran midna waa wax precedents afka Frenchiga lagu yiraahdo ama sooyaal taariikheed iyo cunfi jiray lagu saleeyo anigu sidii aan ku ogaa hadii aanay ayaamahan wax isbedelin khaasatan markii waliba sida ragga qaar hadda xukuumadaha ku jiray ama hore ugu jiray ama ayaamahan ka baxay ay banaanka tageen hadii aan wax isbedelin doorashada waxa qaban jiray xukuumadaha oo door ku lahaan jiray waxay ahaan jirtay koob iyo konton erge ah oo dhaqameedkii iyo nabadoonnadiisii guddi ka soo jeeda waqooyiga Soomaaliya guddi guud oo qaran ku leeyahay waxaan kaloo inta raacinayaa hadda markii laga doodayay doorashadan say u qabsoomayso mar kale waxaan ka ahaa gudoomiyihii guddiga farsamada ee arrintan soo mataqaanay la faguraysay magaalada Dhuusamareeb baad ogeydeen 3 goor baa la fadhiistay Muqdisho la fadhiistay dawladdan hadda jirta waxay ku doodaysay in la qabto doorasho ku saleysan cod iyo qof ka hor waxa lagu doodayay in la qabto doorasho ku saleysan hanaanka proportional representation ama codadka la isu dheelitirayo rabitaankan intii hore lagu noqdo wuxuu ka yimi maamul goboleedyada iyo musharaxiinta kala duwan ee haatan jooga tiiba la aqbalay tiina waxa la yiri ha lagu saleeyay sidii hore ahaan jirtay xogo yarna laga bedelo ayaamahan dambe dhawaaqa dhagahayaga ku soo badanaya haddaanu nahay dadka waqooyiga ka soo jeeda waxa weeye in niman yiri musharaxiin baanu nahay ay leeyihiin reer waqooyigii baan u gurmanaynaa horta qofka laba goor baa loo gurmadaa waa mar uu liito iyo mar uu doqon yahay ayaa loo gurmadaa ama ogaalkiisu uu dhiman yahay war meesha ay kuntumeeyo xildhibaanay fadhiyaan oo wasiirkii maaliyaddu fadhiyo oo wasiirkii warfaafintu fadhiyo oo aqalkii sare ee xildhibaanadiisa fadhiyaan oo kii hoose fadhiyaan oo musharaxiintii waqooyi ka soo jeeda ay fadhiyaan meeshaas gurmadkay u baahan tahay aniga waa ii muuqan waay arrinka marka waxba ku jira horta mid waxaan leeyahay reer waqooyiga waxaad moodaa wixii damaanta wacad yihiin oo waad aragtaan oo isku toosan yihiin dhalinyaradan iyo waxaan la durayay la leeyahay meel kale ka tirsan yihiin waa war waxa weeye aan mataqaanaa meel fog gaarsiisnay mid waxaan leeyahay qolooyinka reer koonfureedka qaybahooda kala duwan annagu ilaa hadda waa isku filannahay bal ninkii gurmad hayo adigu isu gurmaanu leenahay waxaan kaloo idin hubaa kama liidan doono meelaha kale doorashada lagu qabto haddii aanan ka fiicnan dad waaya araga xildhibaanada halkan ka hadlayo caasho koos ay ka mid tahay ayaa halkan jooga oo 20 sano intaas soo doorashooyin ka soo qayb galay 2012 ka hor haatan oo aqoon iyo garasho ay ku gartaan meesha laga xiga garan kara marka yaan la arrimaha reer waqooyiga yaan la moodin timir xabaarta Allah oo cid waliba ay gacanta gelin karto waa arrimo dadkooda ay u soo jeedaan ay u joogaan oo ay ka arrinsadeen yaan marka boardka lagu qasin baanu leenahay siyaasaddiina hadda waa bilaabanto doorasho la gelayaa xadcad arrimaha laga wada shaqeeyo waxaan run ahaantii mar labaad ku celinayaa in ay caddahay hadda mala halkan 500 600 qof waa fadhiyaan haddii kun baanay gaadhin bariyahan waan inda dareeyay bariyaha dambe ragga qaar marka ay xukuumadda ku jiraan wax walba oran jiray waa sunniyo faral ayuunba dibadda u yara baxay oo waxay leeyihiin wax walba oo khaldan yihiin marka
dee wuxuu haddii ay tahay cad yaho ama ku cunay ama ku ciiday qaarkood waaba sii qoyan tahay arrintooda qaar 4 sano ay moogan yihiin waxaaba laga yaabaa dee dawladda dambe la dhiso inuu ilaahay wax ka siiye bal iyana waa u duceynaynaa inuu ilaahay xaq garansiiyo waxaanuna filaynaa dhawaan inay bahadoodan ballaaran ku soo biiri doonaan oo ay baylahnimada iyo marka iyo maxaan darjiirka iska dayn doonaan inagu soo biiri doonaan inahaasaan ku soo koobaya khayr iyo gobonimo idin ku ogaw. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.